zeta iyo kabaro barashada QuickBooks iyo Point of Sale hadda iska diiwaan geli. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Sida Production waa bartaan ku leenahay YouTube ee barashada cilmiga kombiyuutarka gaar ahaan smart accounts ama software-da xisaabinta xisaabaadka casriga. casharkeenan sida halkan ka aragtid wuxuu noqonayaa casharkii 14aad oo ku saabsan course 2026 oo ah QuickBooks software waana basic course waxaan la socodsiinayaa anigoo ah Mahdi Seetaye aan guda galno. casharkeenan 14aad waxa uu ku saabsan yahay habka markaasi loo ogaado hab fudud ama hanaan fudud adigoo maraya deynta lagu leeyahay ee kugu leeyahay supplier-ku. haddaba si aad casharadan u fahanto fadlan soo daawo 13 cashar oo ka horeeyay casharkeenan 14aad. aan sii wadno casharkeenan 14aad waxaan nidhi casharkeenan 14aad waxa uu sal iyo rug u yahay hanaanka fahanka deynta iyadoo markaasi hal total isku wadaa. si aad u ogaato waxaad tagi doontaa meesha ku qoran tahay report kadibna aad yar ayaa tagi doontaa meesha ay ku qoran tahay company and financial balance sheet standardka ayaa soo dooro doontaa. kolkaad soo doorato balance sheet standardka waxaad ka eegi doontaa waxa loo yaqaana accounts payable deynta kugu maqan si aad u ogaatid liability and equity ayaa ciwaan guud u noqonaya kadib current liabilities account payables hadda $12,721 waa lacagta deynta adiga kugu maqan ee kugu leeyihiin dadka alaabooyinka aad ka soo waaridato ama aad ka soo qaadato si aad u siiso oo markaasi adigu deynhaan aad kaga soo qaadato balse haddii aad dadkaasi cash kaga soo iibsato account payable ma soo gali doona. aan ku dhufano haddaba si aan u ogaano dadkan deynta nagu leh ee alaabooyinka ka soo qaadanay ama lacagaha ka soo amaahanay kolba siday ahaato halkaasaan double click siin doona. double click marka siiyo markiiba wuxuu sheegayaa qof magaciisa la yiraahdo ama vendor magaciisa la yiraahdo deeqallah trading company in markaasi aan ka soo qaatay $730 mara. haddana deer trading company ayaan 12,400 ka qaatay. nin la yiraahdo asagana deeqallah oo kii u horeeyay ayaan ka qaatay haddana 2,480. totalku waxay noqdeen 12,720. haddaba si ay 12,000 kunu haraan waa in ninkan laha deeqallah trading company aan siya 200,000 waana siya 720 oo wuxuu ugu leeyahay 730 mara iyo 2,480 mara. marka 720 kaas ayaan siinayaa ninka la yiraahdo deeqallah trading company. haddaba intaynaan siin hab kale ma ku ogaan karaa lacagaha ay nagu kala leeyihiin totaladooda oo mid walba gaar ugu qoran deeq allah iyo deer. hab kale waxaad soo maraysaa isla report hoos baa daadegan company financial ayaa dhaafin. marka aad dhaafto waxaad arki doontaa vendors and payables sidaas ayaa aad yar u gelin dhinacaasi midigta down ayaad u raacin waxaad tagi doontaa halka ay ku qoran tahay vendor balance summary. click marka siiso waxa soo bixi doona laba total oo markaasi kala qaybsan oo aan marka dambe mooyaane marka hore mid walba totalkiisu waa halkaas ku qoraya. deeqallah totalkiisu waxa weeyaan 1,320 halka deer trading company uu yahay 12,400. haddaba laba midba kala dooranayna ma deeqallah ayaan siro garaynaa oo 1,320 ka siinaa mise waxaynu ku horeynaa deer trading company oo deer ayaan siinaa 12,400 mise 1,400 baan siinaa.
way sida markuu u eegnay si kunku ugu haro ninka laha deer 14 si uu 10 kun ugu haraan oo balance 10 kun u noqdaan deer ayaynu ku horeynayna 1400 baan siinayna si 10 kun ay balance ugu noqdaan markaas waxay isbedeli doonaa haddayna balance sheet standardki ku soo noqono markan 1400 aan siino halkan way isbedeli doontaa waxay noqon doontaa halkan 12 kun waxay noqon doontaa 12 kun 320 meelahaas ay noqon doontaa baylaynu soo siino lacagtaas ayaa iska soo bixinaynaa deeq waxa siinayna deer ayaan 1400 siinayna haddaba si lacagtaas u bixino waxaynu tagi doonaa meesha ku qoran tahay banking yar ayaynu right check hal mar gujin doonaa gujiskaan siinay right check kadib waxa ku furmi doonaa qaybtii bixinta ee laga bixin lahaa lacagtaas account-ka ku dooran waa dahabshiil 13,312 baa yaala anna waxa doonayaa 1,400 siyo deer 1,400 halka date-ka ka hooseysa ee calaamada dollarka ayaad ku horqori doontaa automatically markaad halkan banaan aad u baxdid halkan wuxuu kugu jeeyo doonaa lacagta dollarka ay bartaas kugu qori doonaa وكالكا كو قوري 1400 ويان مركز واقل مرعان سنات مرعان و 1400 واي والعقتان بحنون halka marka marayno lacagta waxay halkan baan imanayna ku qoran tahay expenses dabada account ayaan hoos tagaynaa waxaan dooranaa account bible marka soo doorano halkan ayaan ka soo dooranayna fenderkii aan markaasi lacagta siinayna oo ku qoraynaa deer trading company ayaynu dooranay deer trading company waxaan ku lahayn 12,400 1,400 markaan bixino 10,000 ayaa lacagtiisa soo haraysa safe and close horta safe and close intaan oran si halkan uga goodo ay 13,000 iyo 312 ka godo lacagtu safe and you baan oran doonaa deetana waxaan doonaa anyway hadda wada aragtaa lacagtii halka way ka gooday halka 13,312 ka hayd waxay noqotay 12,912 waaya dib ayaan ugu noqon doonaa waxaan eegi doonaa lacagtii ahayd halkan ay ku qornayd ahayd halkan waxay ahayd markii hore 12,720 nimkana noqotay 12,320 1,400 baa ka go'ay oo waxay yaraatay lacagtii ama hashada ahayd ee nugula lahaa haddaynu ogaano sida u yaraatayna double click ayaa sii doonaa kadib daaqada baa soo bixi doontaa alaabooyinka ay soo qaadanay credit ku soo qaadanay waxa kamid ah 730 12,400 12,480 waxaynu bixinay oo waliba dahab shiil ka bixinay akoonka 1,400 waxaana siinay deer si halka gaaragtid habka loo yaran karo ama loo siin karo deen lagu lahaa aduga karta habkan weeyaan casharkan waa cashar muhiim ah practical ku soo samee kadib haddii aad markaasi doonaysid practicalkaaga in laga tijaabiyo waxaad u soo diri doontaa WhatsApp-ka ka muuqda halkaas ama background ka dambe YouTube-keena ah plus 2 jan 2 6 3 4 3 4 2 seteye production 1 hadda iska diiwaangeli Zetay Production 1 oo ka baro QuickBooks Software oo noqo qof xirfad leh kuna shaqaysan kara